بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وريسي gaar oo maxkamadda caalamiga ICJ ee magaalada Danhaag horteeda aanu kula yeelanayno Ambassador Ali Said Faqi oo maanta u gudbiyay diiwaanhayaha maxkamaddan caalamiga ah ICJ qoraal jawaab ah oo markaasi dawladda Soomaaliya lagu sugay. Ambassador ku soo dhaw warbaahinta qaranka marka hore sidoo kale maanta maxaa gudbis? Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Horta maaragtay maxkamaddan si gaar ah waxay leedahay shuruucyo gooni ah oo la raaco procedures gaar ah ay leedahay. Procedurada waxaa ka mid ah markii hore anaga waa file gareynay inaan dacwad keenin meeshan ka keenin kadibna waxaana loo qabtay waqti ah inaan dacwadeena soo gudbino markaan dacwadeena gudbino kadib haddana waxaa dhacday in Kenya laga sugay 9 bilood gudahood inay ku keento taa ma dhicin. Kenya waxay tiri mataqaana way ka hortagtay waxay tiri maxkamaddan sharciyad uma laha marka sidaas darteed maxkamaddii anaga haddana warsatay anagana waxaan jawaab baan gudbinay kadibna waa taa ogeedeen inta ka dhacday mataqaana dhageysiga maxkamadda marka maxkamaddu waxay xukuntay in maaragtay 2 February 2017 waxay xukuntay inay sharciyad u leedahay maxkamaddan in maaragtay ay qaado keeskan marka Kenya ayaa marka waxa khasab ku noqotay dacwadii Soomaaliya ay gudbisay inay ka soo jawaabaan markay ka soo jawaabeen kadib waxyaabo waxa ku jiro qodobo waxa ku jiro oo mataqaana oo u baahnaa marka aan codsanay in qoraal ahaan aan ugu soo gudbino marka had maanta ayay waxay ahayd balantii 18 bisha June Kenya hadda maanta aad markii anaga hadda aan gudbinay kadib Kenya 6 bilood kale leedahay December 18 ayaa idina laga sugay jawaab kadib marka ayaa maaragtay waxa dhici doonta maaragtay markii dhageysiga maxkamadda ayaa bilaaban doonta 2019 واتاي امباسادور مادام ديوان هايها محكمة عالمية ICJ ادو gudbisay qoraalkii rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya ay soo diyaarisay qareenadii caalamiga ah markaasi arintan loo xil saaray adigana wakiilkii dawladda maadaama aad tahay waxyaabahan way soo laabteen oo dhowr mar celcelisa jirtay dawladda Kenya way hadlaysaa oo dadkii siyaabo badan shakiyo badan galay bal arintaas oo dadka Soomaaliyeedna ka shaki bixi bal waxyaabaha jira iyo waxyaabaha Kenya ay warbaahinta la marayso mar qaarkood waa heshiinayna Soomaaliya waxyaabaha sanada runtii horta maaragtay waraysiga ay bixisay wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya dawladda Soomaaliyeed way ka hadashay wasiirkan arrimaha dibadda ayaa beeniyay yiri wax wada hadal ma jiro markaas darteed taa horta beeshay ku dhamaatay laakiin waxaad moodaa in dad fara badan oo Soomaaliyeed baraha bulshada ay maaragtay daacayada fara badan oo raqiis ay ka faafinayeen leeyihiin dawladdii way joojisay maaragtay maxkamadda galabta ugu dambeysay intaan halkaan soo gaarin waa ogeed adiga inta maaragtay message soo gaaray taa hadda waxaan cadeynaynaa in runtii aad maaragtay indhaha ayaad ku aragtay dacwadii waa gudbinay Soomaaliya waxaan leenahay maaragtay arintan dawladda Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo inay ka go'an tahay maaragtay Prime Minister ka naftiisa inay ka go'an tahay arintan dacwad in lagu dhameeyo waa xuquuq Soomaali ka maqan marka wada hadalna kii hore soo dhamaad ayuu ahaa hadda maxkamadda ay taagan tahay maaragtay macnaha maxay Kenya ka tabtaa in wada hadal lagu dhameeyo maadaama ay Soomaali taagan tahay in fagaarahan caalamiga ee maxkamadda horteeda wax walba lagu go'aamiyo Kenya maxay qoraalada bar walba u soo celcelisay oo u taagan tahay in anagu maxaan rabnaa in wada hadal lagu dhameeyo arrimahaas horta dhowr waxyaabo sabab ayaa keeni kara waxa dhici karta in maaragtay sidaad aragteen inay maaragtay difaacooda arinta ay maaragtay ay haystaan sida ay iyaga oo xuduudda ay u goosteen inay qalataay oo aan internationally waafaqsaneen taa ayaa horta ugu wacan ugu weyn magarate marka wada hadalna maaragtay hadda laba dawladood way wada hadli karaan laakiin Soomaaliya waxa sida ay madaxda ay noo sheegtay inaysan diyaar u ahayn anagana aan ogahay inaysan diyaar u ahayn in la wada hadlo maadaama keeskii uu maxkamadda yaalo hadda dib loo celin maayo maaragtay wata ambassador maadaama wakiil dawladda Soomaaliya ugu tahay kiiskan wax badan la socoto waxaa la sheegaa in gudaha meesha hadda Kenya ay muranka ka taagan yahay Soomaaliya in ay shirkado galeen oo shirkado waaweyn oo ay markaas Kenya ay keentay arrimahaas kale ma ku jiraan oo dawladda Soomaaliya ma ka hadashay wax ma joogo shirkadihii meesha ma ku jiraan oo shidaal waxba baarayaan shidaal waxba la sheegi jiray bar arrimahaas dadka Soomaaliyeed u faahfaahay
runtii waa jirtay in maaragtay shirkado batrool ah meeshaas ay batrool ka bilaabeen inay ka baaraan taana markaan maxkamadda Kenya way joojisay codsi warqad bay soo qortay cadeynaysa inay halkaa ay ka joojisay shirkadihii iyaga naftooda meel dacwad ah ma rabaan kharash inay geliyaan sidaas darteed iyaga naftooda way ka istaageen oo way ka tageen masladahay dowladda Soomaaliya arinta way ku guuleysanaysaa oo guul weyn ay gaari doontaa shacabka Soomaaliyeed bal maxaad arimahaas ka leedahay ilaan dadkii badanaa way wareersiin waxay isleeyeen maalin walba in qoraalkan la gudbinayo iyo maslada arinta inay ku guuleysan karto horta arinta maxkamadda ay taagan tahay waana maaragtay sidaad aragteen oo aad mararkii hadda maxkamadda hadda ma bilaaban 2014 bilaawatay ilaa hadda ay socotay keeska Soomaaliya ay haysato waa kees adag maaragtay xuduudaha waa la yaqaan adduunyada xuduudaha badda sida loo qaybsado sida ay Kenya rabtana maaragtay meel lagu qaybsado lama hayo taariikhiyan marka waa iska caddahay maaragtay qolada ku guuleysanaysa maaragtay ugu dambeyntii maxaa u sheegaysaa shacabka Soomaaliya wallahi anaga shacabka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in maaragtay dawladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay difaaca maaragtay dhulkeeda iyo baddeeda aysan raali ka noqonayn in maaragtay dhibic kamid ah baddeeda in la qaato marka madaxweynaha iyo maaragtay dawladda iyo prime ministerka maaragtay dawladdiisi dhamaan maaragtay shacabka Soomaaliyeed ama dawladda naftooda inay arintan ay ka go'an tahay hadda waad maqlaysaa inaan mataqaana madaxdii inaan la hadlayo maaragtay aad aragtay runtii maaragtay arinta way ku faraxsan yihiin inaan meesha keenay ilaan iyagii ayaa maaragtay looyaradan kharashkooda iyo waxooda iyagii ayaa laga rabaa dawladda ayaa bixinaysa marka meelna loogama noqonayo dadka waxaan u sheegaynaa arintan dacwadda lagama noqonayo arintan waxay noqonaysaa arin maaragtay sida ay dawladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh u soo bilaaway ayaa madaxweyne Farmaajona u sii fulinaya maaragtay aad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u qaabilsan wadamada Benelux iyo Midowga Yurub Ambassador Ali Saciid Faqi oo maanta dukumeentiga rasmiga ahaa gacanta u galiyay diiwaan hayaha maxkamadda caalamiga ICJ isla markaasina jawaab u ahaa qoraalkii Kenya intaan waraysi midkaan la mid ah daawadayaan aan ku kulmeyno waa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhinaca farsamada waa Maxamed Yara iyo kaamirada anigoo Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirowna waxaan idin soo gudbinayaa waraysi